وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يم xafladda qalinjibinta dufcadii labaad ee dugsiga Iqra oo ku yaalo xaafadda Cali Macow oo dhameeyay farbarka akhriska iyo qoraalka Qur'aanka iyo qaar kale oo ku tartamay 5 juz ayaa maanta ka dhacday xaafadda Cali Macow waxaana ka soo qayb galay madax culumowdiin iyo waalidka ardayda xafladdan oo si heersaraha loo soo abaabulay ayaa lagu furay bandhigyo ay soo sameeyeen ardayda dugsigaasi ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين إمام المرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن طلاب من طلبة مدرسة الإقرا لتحفيظ القرآن الكريم وتربية الإسلامية متن الجزرية في علم القرآن محمد الجزري الشافعي qaybta labaad ee ardayda oo xifdiyeen quraanka ayaa lagu doonsiyay abaalmarin ugu dambeyntii dadka ka soo qayb galay xafladda ayaa sheegay sida tan maanta aan inta u joogno waxay ku saabsan tahay madrasatul Iqra ardayka qalin jibiyeen xagga farbarka akhrinta iyo xagga imlaah marka la fasiro ay noqon karto Soomaali xagga miirinta ka qalin jibintoodii xafladda iyo ilma 5 juz xifdiyeen oo ayagana ma taqaanta kamida xafladda inay la guddoonsiyo shahaadooyin ay ku saabsanta qalin jibinta anaga waxa caadan u ahaan jirtay inaan aragno dadka jaamacadaha joogan inay koofidan ay xirtaan qalin jibinta laakiin quraan la maamuusahay jaamacad koofidii lagu aqaanay oo qalin jibinta waa yareed maamuuskana waa mid loo baahnaa quraanka ahal u ah quraankaana ma taqaanta mudnaa min albidaya bilaw ila dhamaad ila maamuusa waayo waa dastuurka Allah subhanahu wa ta'ala insaanka uu soo dejiyay maamuuskana waana mid lagu baahan yahay qof kasta oo muslim ah dugsi waxa la aasay bishii shanaad taariikh 5 2022 iyo labadii sanadka hore soo dhaafnay ila khayr haasiye dad oo haddaan waalidiinta kamid ah ayaa nara aaseen oo meelaha buulo dhaxdeedan ka aasnay dugsi 6 bilood markaas furnay group ugu horeeyay ay soo baxeen 6 bilood ka bacdina groupkan kale ayaa soo baxay oo dugsi total hal sano leh furun oo hadda inaas hore u socdaan rajeynayeen insha Allah taala hal sano gudaheed wixii ka soo baxayna kullee waa aragteen aan u maleynayaa oo wali aan hal macallin aan ku ahay marka dugsi taariikhdii soo kooban kullee waa iska intaas ka bacdi waxa u maleynayaa dad badan waxay isweydiinayaan xafladan xaflad noocee waaya yaani farbar oo shahaado lagu bixinayo ama maxalli jiray kitaableey hadii quraanka la dhameeynaana ilaa dhowr koosan oo kalaata in la fadhiyo u baahnaa xaflad 7 bilood gudaheed lagu qabana oo kalaata kullee taas hadaan caday maxaa waaya xaflad waa qayb oo farbar laba qayb ay ka kooban tahay group waxa waaya waa group farbar oo ilmihii hore ay ka hereen groupna waa group 7 bilood ka hor meeshan shahaado farbar ku qaateen oo ayagana xifdis loo diray xifdis ku maqnay
قربنا وقرب هاسكاس أما جارسي سنين وميل وجوجين وأينا فرت لقى سو سحاي لابد قرب امتحان كودا على السكودري كوفر بركة صار ميان كونا مركي حدا كهر تطبيق كهر أنت قاعدين حفظ الودري واحد بيحفظناين امتحان كودا على السكودر مرك قميص عيال قاضي ilma farbara loo qaado farbara ku dhameeyeen farbarkay ka taqrujeen hadda way ka baxayaan qayb kalena 5 juz ilaa 3 juz 4 juz inta ugu horeysay gaareen maadaama dugsiga taxfiid yahay ayagana maxaa lihi jiray quraanka ay soo xifdiyeen imtixaankooda la isku daro marka xafladan hadda qabanayna waa xaflada noocaas ah ilma farbar oo shahaado la siinayo iyo ilma farbar oo ilma 5 juz xifdiyeen alamin inuu kulmiyay meeshaan aan ku weyneynayno kitaabka Allah subhanahu wa ta'ala xafladii oo ardayda imtixaanka laga qaaday lagu guddoonsiinayo jawaa'istoodii kuwii qalin jabiyayna farbar ka soo baxayna lagu siinayo shahaadooyinkoodii marka Allah subhanahu wa ta'ala mahad iska leh kadib waxaan mahad u celinaynaa macallinkii ilmahan soo saaray oo xaqiiqatan iyo tirada ay ku badan tahay saan ka arkayno juhdi galiyay kuwii farbarna soo farbaray kuwii kitaableedana casharkooda quraanka soo xifdisay waxa maasan waalidiintii ilmahan ay dhaleen kitaabka Allah subhanahu wa ta'ala ku bilaabay inay bartaan oo xifdiyaan si aakhiri adduun bay u anfacaan nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri khayrukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allama waxa idinku khayr badan ninkii quraanka barto oo dadka baro lama dhig waxa idinku khayr badan ninkii dhakhtar noqdo lama dhig waxa idinku khayr badan ninkii injineer noqdo lama dhig waxa idinku khayr badan ninkii pilot noqdo waxa idinku khayr badan ninkii quraanka barto oo baro waalidka horta waxaa leeyahay marka hore bishaaraysta ilaa anaga waxaa shalay imtixaanka nogala dhiibay inaan ilmihii inta tabarta anaga aan soo gudbin waxay barteen soo ma waalidka bal soo ogaad ilmihiisa waxay barteen meesha maxay ku hayaan ma sidii baa mis waxba isbedelay qaarna ma sha Allah waa ilmaha maanta insha Allah arki doontaan iyo wax la midka ah yay soo saareen marka insha Allah ta'ala anaga khayr baan aragnay macallinkii waalidkii bas garabsaday miraan ka aragnay natiijada insha Allah ta'ala waa doo taala waana la wada baasay carruurtu عليه insha Allah ta'ala farxa oo waxna niyada insha Allah ta'ala dhista dhama waa la guuleystay waa la koreeyay laakiin waa la guuleystay imtixaankan marka la qaaday sidiisaba saadu malayn ba waxa la yaabaa cunug iska fiicnaa yaa marka imtixaanka u fariista la yaabaa xogaha inuu ama farnax ama macnaha xogaha wax sir ka noqdaan macallimiinta markay wax saxayaan waxyaalo kale fiirnayaan oo ilmaha ku kala saaraan laakiin insha Allah ta'ala si guud waa la guuleystay cunug dhacay ma jiro walaaliyaal quraanka kariimka saad garanaysaan waa kalaam ilaahay وكلام الله عز وجل إلهي نبي محمد كسو دجيي بواسطة جبريل كسو دجيي سورة الفاتحة لغب بلابي سورة الناس لغدمي صدحي لواتا سننا إلهي كسو دجيني نبي كسو دجيني هورت القرآن كاس قيمة بدن إلهي نوات المامي nabigiisana waa tilmaamay dadka bartana waa gooni watii hadda gabartii akhrinaysa kamid ah quraanka inuu yahay uu leeyahay inna lillahi ahliin ilaahay wuxuu leeyahay dad buu leeyahay ahl gooni ah ahlka ilaahayna waa kuwa nabi markii la weydiiyay muxuu yiri ahlul qur'aani quraanka dadka ahlkiisa ah kuwaas ayaa ilaahay ahlkiisa oo khaas ah marka ahlki ilaahi markii la leeyahay dadka lagu magacaabin waa ku nabiga inta fasiri waa dadka aqriyaan kaanu yacmaluuna fi dunya dadka ku amal fala marka anaga markaan tafiirana yani sida xadiis tilmaami meel fogbaab la kala jooga ilaahay uu raxmadiis noogu naxariisto mooyee khatartada iskaleed horta fadligiisu waa sida ayada wuxuu nabigeena tilmaam dadka waalidka ilmahooda quraanka baray macallimiinta bariis u kaalmeeyay garab istaagay maalinta qiyaama darajo ay gaarin oo amalkooda ku gaarin ilmahoodii wax bartay oo quraanka bartay darajo ay ku heleen buu ilaahay
gaarsiinaya. ومال آد وفرحان له قفل بعملنا قلبي جيس ما أنتوا على كدر ما يا شعور أما فرحات قولي واه محيا لي هدي داركتا عنق هذا أم المير وقال جبنايا فربركة كتر تمايا وحوايا آد بدو فرحيسا وأنا أرهن هوري أن أجرن جيرين ضد كأن سومالي هان أمر هر وجرهان هور أم جرن جيرين المير فربركة وقال جبنايا كدب هذا حفظ كسيب بالله وأرهم عصب وحالنا هن معلم كان إيو معلمين كلا إدوكسيال يرى مردو بالله وأنا أهم بليينينا وحالنا هن سوى إن شاء الله تعالى إيو ضدكاس أنغنيسين دايشة ونكسن تصارى ونكسن أنغنيسين مقالة أما معلمين تكلا ومحلي جيري ويلي أرهنتاس أم بالله سفي عنو سوى يعني لأن هن ما شاء الله وحالنا هن مدة كلا والدين هذا كان أرنتاز كبر أروكسن هذا معلمين تجرب استاجا لونا أول مرين دونو المها كوكوليستان تاسو عي ونقول يسدي رجلين المها إن المعرض أي أوجادان دولة إن يجرب تاجنتاي وإن وحنا لقبنايس إن شاء الله تعالى مركا دوكسيان إن شاء الله وأن أغنى هاي دوكسير وسكر هاي وهرو سعودية هاي دولهان يومشوا معرض كوسليسين هاي إن حواه أي أنفعين ونوشيجي معلنك مالن تورو iyo maamulku way soo dhigeen insha Allah taala ka nafs shakhsi ahaan iyo ka maamul ahaan wixii la qaban karnana wixii la qaban karno tabar insha Allah waa la qabanayna kulankan sharafta leh oo isugu imaanay markuu horeysaba Ilaahay aanu mahad celinayna Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo kulankan sharafta leh namakaniyay anagoo isugu imaanay kitaabkiisa korinaan u qaadna iyo awlaadeena oo la bariya inaan dhageysana iyo culimadeena marka codkooda inaan maqalna isugu imaanay inaan dardaaranaan duceysana isugu imaanay Ilaahina waafajaan u mahad celinayna marka xigta dhamaan culimada iyo marka iyada cirowga culimada iyo madaxda kale oo ka soo qayb gashay oo soo xurmaysay dhageysiga kitaabka Ilaahay way mahadsanyihiin ayagana mid kale waxa weeye macallimiinta markaskan iyo dugsigan madrasadan ka adeegtay oo Ilaahay waafaji in marka iyada u baxaan ay soo saaraan oo Ilaahay sabab ugu dhigay ayagana way mahadsanyihiin marka kale ardayda waxa weeye wiil iyo gabarba oo shan ka qayb qaadatay oo Ilaahay weyna waxadka hibadan si waan u mahad celinaynaa والدك وحوي أولادنا تربية أو إلهي قعنتو ذا كسوعي إنه دوكسيجاني مدرسان جين ومهسينا يجنا أنت سواء أنت دوكسيجا غفك وحكبرتها قرآن كبرتها أو حفظية أو تربية صامرة أو تربية والد أو ناقصنا صابرتها عنو جاس أي جوليسانية أو سكول كجوليسانية أو جامعات كجوليسانية أو مستقبل كيسنا والد كيسة أيو دت كيسة الدين كيسة iyo dawladdiisa wax ka noqon doono midka waxa weeye noocaas weeye marka dugsiga iyo macallimiinta juhdigoodii waa u jeednaa juhdigiina waxa weeye kii Ilaahay barakay Allah ka dhiga awlaadii siday noo tuseen hadaba mustaqbalkana aflaxa oo guuleysta dugsigan iyo dugsiyaha kale baa Ilaahay ka dhiga waa mahadsan yihiin nimanka xafladan maanta nooga yeeri anigoo wakiilka Cali Macow waa xaflad wanaagsan ardadan maanta galaysa kuwii ka horeeyna markay qalin jibinayeen waan joogin waan ka qayb galnay waa xaflad wanaagsan oo si fiican nooga soo agaasimay sida iskuulaha iyo jaamacadaha iyo waxaan iyo xafladaha looga hagaajiyo arrimaha diinta naftankeeda in looga hagaajiyo ku dhismaan waa fiican tahay markii insaan iskugu yimaadna madaxda iyo dadweynaha kulli ay ka soo qayb galaan waa arrin wanaagsan oo soo jiidaysa dadweynaha kale oo moraalka ilmihii maaragtay akhris ku jirin oo dhisaysa waalidiinta naftinkooda oo dhisaysa way fiican tahay in 6 bilood markaan tartankan ilmaha hadda oo farbar iyo akhris reading and writing waa arrin markaan oo macalinka marka ani arday ay ugu jirto maadaama on area chief kana aan waa arrin wanaagsan macalinkana asan dhahay 6 bilood
ilmaha meesha ay marayeen waa inaan ogaana xag akhriska iyo xag qoritaankaba marka waan ku mahadsannahay marka macalinka waa mahadsan yahay waxaan rabnaa anuga haddaan aanay dadka bulshada maaragtay oo ugu weynaa haddaan ahani inaan dugsiyaha aan kor u qaadna waxaan umaynaa madrasadan wasaaradda gacanta ku hay waa wasaarad fiican ma sha Allah waa maxay yeelay macallin hadaa arato oo wax badan imtixaan soo banaayo oo xirfad dhiga waa macallin gacan ka haysto waa wasaaradda ma sha Allah hortaan leeyahay wasaaradda inuu madrasada ugu jiraan wasaaradda fiican waay maxay yeelay macallin qad imtixaan soo bano ilmaha imtixaan qaado wasaaradda soo yeera ninkaas nin gacan si fiican loo hayo waa madrasooyinka qaar oo arkaysa hal sano laba sano kadib imtixaan hal mar loo yeera maxay yeelay anaka dan wasaaradda aan lacagaha iskuulka waa bixinaa laakiin lacagaha oo tacfiidka waa sayd waa xaway si loo bixi waa adagtahay cunuga hal dhaar iskuulka kama jooga dar soo fiiji laakiin hada madrasada fiiji waxa Allah dhimana iska joog ayaa la dhihi horta wasaaradda maxaan ku boornaa diinta aan gacanta ku qabanna macallimiinta lacagta bishi oo mushaarka hala siiyo si iskuulka loo murgo ay kana loo murgo maxay saas hadaan kan aan yeeli waayna diinta hoos bay u dhacaysaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. علماء ومهندسين خير الله سي معلنك أردنا وحساب بريء خير بدنا ورجينا إن شاء الله هذا سؤال ذلك ما حد وين نوعلنا والدين تأيي كانوا وايد ذالين خير الله سي عن لي هي دداشة سي وضع معلنك قرب يستاجع ardada aad ay natiijada u wanaagsan tahay iyo xulloorkooda iyo maxaa jir iyo muuqaalkooda dhammaan macalinka waxa waqti dheer ay isku bixi dadaal badan isku bixi khayr Allah siiya aan leenahay waa garab istaaganaynaa dadaasha sii wad marka hore ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaan mahadinaynaa ilaahaygi anagoo caafimaad qabnaa meeshaan isku kan keenay in aan ka qayb qaadanaa xafladan aad iyo aad loo soo agaasimay oo run ahaantii xafladda labaad oo isla dugsigan oo ka qayb qaadana ilaahay baan mahadinaynaa madaxigta martideena oo sareey suldaanka oo marti sharafka noo imaadeen iyo culimada macallimiinta waalidiinta iyo ardayda ka soo qayb galeen xafladana waa u mahadinaynaa run ahaantii maalintii hadda u horeysay ما حسوس تاريخ لكن هل كان أسبوعي ماضي عيال كان نهار فديان يوم الدكسي جود كوكي مادين وعينو صديقين مشروع آد عن أولاد عني وكسب سن هنجاد إيو فربركة حسن أيمن تلفزيون ألفا جدا اسمه ملكني وجر